أي تدوينه كي تنتود واركان اختيار كدورتان العذنا وحيتهي درشو ينحره قف يعد أي تدوينه كي تنتود واركان اختيار كدورتان kula wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha xisbiyada oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Tusma TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Muqdisho guud ahaan barnaamijka waxa aynu kaga hadli doonaa ama ku eegi doonaa tababar uu macadka Sibam u qabtay axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirta taas oo looga hadlayay sida loo dajiyo yoolalka iyo istiraatiijiyada dhaadheer ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxaana ka qayb galay tababarkan xisbiyada siyaasadeed ee dalka kuwaas oo aragtiyo kala duwan ee ku soo bandhigay madasha uu tababarkan ka soconayay waxaana tababarkan bixinayay madaxa macadka Sibam Maxamed Muqtaar waxaana badi uu sharaxaad ka bixinayay mowduuca uu ku saabsanaa tababarka loo qabtay axsaabta siyaasadeed ee dalka ugu horeyn waxa isagu madasha ka hadlay isla markaana ka warbixiyay Maxamed Muqtaar oo ah madaxa macadka Sibam qaabka ay u soo agaasimeen iyo waxyaabaha looga hadlay tababarkan hal qof ama hal koox ama hal macad uu saameyn kaligiis ku sameyn karo macnaha maaha waa wada dheer oo la marayo dhib badan macnaha culays badan iska jiraan qof walba marka kaalin uu ku leeyahay anaga kaalinteena macnaha waxay tahay inaan idinkeeda la shaqeyno macnaha laakiin ma dhihi karno doorashada noocaas u dhici kartaa waqtigaas ay dhacaysaa saas macnaha taas ma laakiin anaga waxaan isu xil saarno inaan ka shaqeyno waxay tahay in dadka xisbiyada maamulayo inaan wacigooda la kordhiyo in waxyaabaha ka dhiman la dhammaystiro laakiin collectively macnaha annaga xisbiyada dowladda dadka Soomaaliyeed ayaa wada go'aansanaya macnaha destiny-ga macnaha future-ka siyaasadeed ee Soomaaliya meesha ay ku dhamaanayso macnaha ma wax hal koox iyo hal macad uu asaga dhihi kara anaa go'aaminaya amaanada ka dhiibanayma laakiin waa dadaal aan kulligay ku wada jirno idinka waxaad qabanaysaan annaga waxaan qabanayno dadweynaha waxay qabanayaan dowladda waxay qabanaysaa soo marka taas ayaa destiny-gaas ay noqonaysaa in la wada yeesho macnaha waa xasuusanaa sidii ay ku bilowdeen doorashooyinkan habeenba meel ay soo hoyanayeen habeenba meel ay soo hoyanayeen soo marka insha Allah waa process dheer macnaha caqabado badan iska jiri doonaan laakiin hadii waxaan rajeynayaa in wada jir aan u go'aansan doono destiny-ga Soomaaliya ay yeelanayso arinta raalawdi Sheekh Saare weydiisay mana arinta how quickly aad shaqo sameyn kartaan waxay ku xiran tahay annaga macnaha just like inta ay document ku diyaarsan baahida aad qabto resourceska aad qabto stakeska macnaha dadka stakeholderska intay ku diyaarsan yihiin soo marka ma jirto prescription aan ku dhigi karo waxaan ku qabanaynaa iyo asbuucan ku qabanaynaa iyo bilan ku qabanaynaa ma jirto waxay ku xiran tahay shaqada la qabanayo xisbiga inta uu diyaar ka yahay scope shaqada macnaha baaxadda shaqada inta ay leeg tahay complexity-geeda ku xiran tahay soo marka waxyaabo badan oo ku xiran ka mid tahay laakiin waxaan isku dayaynaa in haddii la yiraahdo horta marka hore inaan daatisaan ballan qaadnay waxa ay sheegayso horta adiga inaad diyaar u tahay mana judge readiness-ka inaad horta diyaar u tahay markaan ku qanacno inaad diyaar u tahay oo wixii loo baahnaana ay jiraan in markaasaan go'aansan karnaa dhihi karnaa okay nooca shaqadan macnaha intaas waqti qaadanaysaa saasay u noqonaysaa sida aan sheegnay su'aasha ahayd macnaha idinka macnaha barnaamijka aad samayseen macnaha ma barnaamij oo dowladda idin og tahay iyo guddiga doorashada madax bannaan miya mise macnaha okay guddiga doorashada madax bannaan annaga ayaa isu xil saarnay inaan hawshan qabano macad ahaan annaga isu xil saarnay cidna fan naguma yaaniseen project naga maaha laakiin annaga waxaan iibinaynaa servicekeena aqoonteena idinkaan iskiin baraynaa kan waxaan free ugu bixinay inaan wax naga gadataan macnaha wax free adduunka ma jiro laakiin waxaan ku sheegaynaa bas inuu jiro macad Sibama adeegan qabto haddii aad diyaar u tahay inuu kula shaqeeyo taas soo marka kan waa marketing waay anaga macnaha wuxuu leeyahay suuqgeenu naga yahay waskiin bareena soo marka haddii aad adeegan rabtaan diyaar aan nahay guddiga doorashadana xaq wuxuu leeyahay wax walba oo macnaha xisbiyada in loo sheego laga wargeliyo sababtoo ah macnaha waxa aan rabno waa wada shaqeyn ما هذا إسكسو هرجيدمني ضد حزبية لا تحتمامني برنامج سياسي أنا هواي راتين ومجرو وبرنامج كان وعنا وحوا وأدمنستراتيف أديك معنا وحن كادين وعنا وحوا مامو وحن كادين
so marka taasna meeshaasaan kaga hara runtii waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo waqtigiina aad qaadateen halka noo imaadeen fadlan waxaan jeclaan lahayn in fariinta maamulka u gaarsiina haddii maamulka xisbiyada uu hagaago waddankan fursad fiican wuxuu leeyahay inuu hagaago macnaha hagaaga maamulka macnaha qoro gooni laga rabo mala macnaha qolo walba meesha ay maamusho qof walba xafiiska uu maamulo hadduu maamulkiisa hagaajiyo wadajir macnaha dhammaanteed waa hagaagaysaa. waad ku mahadsan tahay macadka sibam waxa uu isu xilqaamay inuu qayb ka qaato arrinta loo yaqaana adkeynta xisbiyada hadda laga diiwaangeliyay dalka gaar ahaan xisbiyada iska diiwaangeliyay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka waxaan u qabanay maamulada xisbiga dadka maamulo ujeeddadana waxay ahayd in la baro sida loo sameeyo qorshaha dheer sida aan naqano waddanka iyaga wuxuu ku jiraa sidii ugu guuri lahaa xisbiyo badan haddii la yidhahdana waxaa la filayaa inay doorashooyin dalka dhacaan xisbiyadaas waxay hamigooda ku wada yihiin ilaa ay hadda intaas diiwaan gashay oo halkan kasoo qayb gashay waa 35 hamigooda wuxuu yahay inay dalka hogaamiyaan si ay dalka ugu hogaamiyaan marka laftigooda waa in ay maamulkooda ay hagaajiyaan annaga waxaan macad ka shaqeeya arrimahaas marka waxaan siinaynaa tababar oon ugu talagalnay sidii ugu xoojin lahaa maamulka gaar ahaan sidii u degsan lahaayeen waxa loo yaqaan qorshaha dheer ama strategic planning وقرتي مدام موضوع عقودها استراتيجي بلانينك او حزبيده لا بري guud ahaan Soomaaliya xisbadu way ku cusub yihiin badi waxa ka soo qayb galay xisbiyada wakiilo dhalinyaro u badnaa inkastoo ay ku jiraan rag odayaal haddana sibam inta loo baahnaa way gaarsiis leedahay dhammaan xisbiyada maanta ka soo qayb galay seminaarkan runtii ka soo qaybgalka aad ayuu fiicnaa dadka ay xisbiyada soo dirsadeen waa dad saameyn ku leh xisbiyada matalayay ujeedada iyada waxay tahay in ay aan gacan siino inay xisbiyada ay yeeshaan karti ay ku maamulaan xisbiyadooda marka ay kartidaas yeeshaan kadib ayaa waxay u saamaxmaysaa inay dalka hogaamiyaan soo marka waxa aan diyaarinayna waxay tahay hogaamiyaashii berrito وقرتي سبب qorshaha muu jirtaa inay seminar noocan oo kale sii qabato si loo dhiso aqoonta xisbiyada oo hadda soo kabcaya isdiiwaangelin badan hadda ay soconayso la filayo in doorashooyin xisbiga loo dareero misleedaas sibam waxay kaalin muuqata ka qaadan kartaa seminar noocan oo kale inay joogtayso oo ay siiso xisbiyada dalka runtii waa macnaha qorshaha iyaga bilow way kan waa talaabadii koowaad waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan rabnay inaan sameeyno waxay tahay laba dhinac waxaan adeeg u sameynaa xisbiyada oo ah inaan ka caawino sidii u diyaarsan lahaayeen ee u qoran lahaayeen dokumentiyada loo baahnaa samaysan lahaayeen qorshooyinka loo baahnaa dhinaca kalena waxaan tababar siinaa shaqaalahooda dadka ayaga u ah taageerayaasha oon ugu talagalnay inaan kobcinno aqoontooda waayo aragnimo ay ku shaqayn lahaayeen soo marka labadaas adeegba waan sameynaa maxamed mukhtaar ayuu ahaa madaxa machadka sibam oo isagu soo agaasimay barnaamijkan looga hadlayay sida loo dejin karo yoolalka istiraatiijiyadda dheer ee axsaabta siyaasadeed ee dalka intaas kadib waxa aanu la hadalnay ka qaybgalayaashii seminaarkan kuwaasoo iyagu matalayay axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jirta waxaana ay si isku wada mid ah usoo dhaweeyeen tababarkan uu sibam u qabtay waxaana ay sheegeen in la joogteeyo tababarada noocan oo kale ah loo baahan yahay in lagu kobciyo aqoonta axsaabta siyaasadeed ee dalka haddaba qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii seminaarkan ayaa iyagu ka hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ugu mahadcelinayaa macadka sibam runtii waxay noo keenan seminar aad u wanaagsan magacayga waa Cabdi Cali Maxamed waxaan ku matalay xisbiga shaqaalaha Soomaaliyeed Somali Labour Party runtii training waxay ugu muhiimsan oo laga hadlayo waxay ahayn strategic plan maadaama xisbiga uu leeyahay aragtiyo kala duwan marka sidee lagu dhisaa strategic plan ayaa hadda oo nooga hadlay facilitatorka ama fududeeyaha oo aan gudoomiyaha runtiina macadka sibam waxaa leeyahay aad u mahadsantihiin waa arrin active aad u wanaagsan oo loo baahan yahay in aad iyo aad loo sii kordhiyo sida gudoomiyaha uu sheegayo kale in hore loo sii wadi doono kaasoo ah ka qayb qaadanaya capacity building bulshada maadaama xisbi nidaamka xisbiyada fog loo socdo in xisbiyadii lagu baraarujiyo oo aad loo fahamsiiyo wax uu qabanaa runtiina maxaa ku laaban doontaa marka oo cashar halkan aad ka qaadatay oo aad dib ugu laaban doontaa xisbigii aad matalaysay oo ku soo diray casharada halkan aad ka qaadan doontaa maxay noqon doonaan runtii casharo aad iyo aad u muhiimsan ayaan ka qaadanay hadda waxaa laga yaabaa intaa seminaarka imaan ka hor inaa aragtiyo kale ka qabay laakiin markii aan seminaarka qaatay kadib aragtiyo badan ay soo baxeen sida hadda tan ugu muhiimsanado aad xisbi kasta wuxuu aad xoog u saaraya external marka gudoomiyaha oo facilitatorka sibam wuxuu aad noo sheegay in internalka aad u muhiim u tahay marka waxaan rajeynayaa inaan kula laaban doono xisbiga iyo madaxdeedii inaa aanu aragtiyo aad u fara badan aan ka qaatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
seminaarkan maanta meesha ka baxay seminaar muhiim inuu yahay arkaa dhinacyo badanna faa'iido u leh مثلا waxa isugu yimid axsaabtii waa isugu timid waa la isku arkay waa la isku bartay marka koobaad oo dad baa is weydaarsaday aragti iyo barasho dhinaca kale barnaamijka xisbigan barnaamijku wuxuu ku saabsanaa barnaamijkan qorshaha ah waxa weeye wuxuu dhisayaa axsaabta wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha dowladnimada wuxuu ka qayb qaadanayaa wacyigelinta axsaabta iyo bulshada si guud marka waxaan isleeyahay barnaamij aad muhiim u ah oo seminaarkan inuu la badiyo oo uu soo noqnoqdana mudan inuu yahay ayaanu arkaa macadkan aad baan ugu mahadcelinayaa maartay fuliyey barnaamijka waan ugu mahadcelinayaa annaga ahaan xisbi ahaan waan ka faa'iidaysanaynaa wixii hore aan u qabsannay ee aqoontanadii hore iyo khibraddanadii hore ayuu noo sii kordhinayaa oo ziyaado noogu sii daray marka waxaa weeye dib baan ugula noqonaynaa waan kasii faa'iidaysanayna insha allah haddii la yidhaahdo aad baan ugu mahadsantihin waa gartay maadaama xisbiyada ay ku cusub yihiin Soomaaliya oo hadda dib loo aasaasayo qaarkood la diiwaan geliyay aadna xisbi matalaysay dhalintu badanaa kuma baraarugsana xisbiga muhiimadii ujeedada uu leeyahay sibam barnaamijkan ama seminaarkan maanta ay qabataan istiraatiijiyada looga hadlayo iyo qorshe uu yeelan karo xisbigu misleedahay haddii xisbiyadu ay helaan seminaarada noocan oo kale ah wax badan oo iska bedeli doona nidaamka axsaabta ee dalka ها waan isleeyahay wax badan baa iska bedeli doona طبعا axsaabta way nagu cusubtahay marka koobaad oo axsaabta xisbiyada badan hadda inaga way nagu cusub yihiin welina camaliyan si dhaqan gal ah waa un la diiwaan geliyay bulshada iyo weli siyaasad lagu galay oo doorasho lagu galay ma jirto waa un hadda bilow yihiin laakiin waxaan isleeyahay inay tayo yeeshaan oo dhismaan oo ay axsaab rasmi ah oo sida adduunka oo kale ay noqdaan ayay arrin barnaamijkan ka qayb qaadanaya oo si weyn uga qayb qaadanaya waxaan isleeyahay xisbi kasta oo tadbiiqiya ama dhaqan geliya seminaarkan wuxuu hormud u noqonayaa ama ka hormaraya xisbigii kale ee aan dhaqan gelinin saasaan isleeyahay si guudna waa maartay bismillaah alxamdulilah ugu horeyn magacayga waa maxamed xaaji axmed waxay tahay farxad iyo sharaf gaara inaan kasoo qayb galo seminaarkan ay qabanaysay machadka sibam xaqiiqatan wuxuu tusaale iyo rool cad u yahay sida asxaabta wadanka ay u samaysan lahayn istiraatiijiyo iyo qorshayaal cadcad kuwaasoo lagu hirgelinayo nidaamka asxaabta siyaasadeed ee dalka runtiina maanta waxaan ka faa'iiday waxyaaba aad iyo aad u muhiima kuwaasoo ay ka mid yihiin istiraatiijiyadayaasha sida tusaale ahaan oo xisbiga u yeelan lahaa effective and efficiently inuu macnaha waxa uu sameynayo iyo wax uu qabanayo oo si sax u qabto labo maxaa xisbi ayaasan ahayn sidee xisbiyada u manage garan karaan social rolka ama social developmentiga waxaan ka bartay toobigyo aad u waaweyn oo runtii saameyn weyn ku leh saameyn kara asxaabta wadanka ka jira taas oo loo baahan yahay in la gaarsiiyo xubnaha hoose xisbiga in la gaarsiiyo shacabka in la gaarsiiyo runtiina waxaan dhihi karaa waxay rool cad ka ciyaari kartaa in wadanka nidaamka asxaabta wadanka ka jiro ee awoodi oo macnaha u yeeshaan in markaas la gaaro democracy and development and political parties oo si sax u shaqeeyo saas ay la tahay runtiina waxaan dhiirigelinayaa waxaa kasoo qaybgalay asxaab badan oo kala duwan xubna matalayo waxaan dhiirigelinayaa runtii aadna ugu faraxsanahay barnaamijyada caynkan oo kale ah oo runtii training wax lagu baran karo oo asxaabtana macnaha una kharto saaro fiican in dhiirigeliyo macadka sibamna si gaaran uu macnaha ugu dadgelinaya in barnaamijyada noocan kale oo hore usii wado insha Allah guul badan iyo rajo badan oo ii muuqata waa gartay maadaama xisbiga aad matalaysay kan ahaan xisbiga matalaysay maxaad ku laaban doontaa oo isagu ay uga dhigan tahay ka qaybgal ahaan inuu ka qaybgalo seminaarkan xaqiiqatan waxaan ku laabanayaa cilmi fiican cilmigaas oo ah inaan bartay strategic planning for political partieska istiraatiijiyada iyo qaabka la rabo inay u shaqeeyaan asxaabta wadanka waxaan ku laabanayaa inaan concept badan iyo fikir badan ayaan ka qaatay oo la hore u haysanin aan ka qaatay macadka sibam oo noo qabtay waxaan rajaynayaa waxaas cilmigaas aan bartay maanta oo nolosheedana kusoo macnaha wax kusoo kordha ah inaan ku laabo doono xisbiga aan ka tirsanahay taasna waxaan rajaynayaa inay quality iyo tayo iyo wanaag u noqon doonto xisbiga si aan message-kaas ama risaaladaas maanta inta ka xambaaray oo intaan ka bartay in anagana aan gaarsiiyo xisbiga aan ka tirsanahay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa qaasim xasan maxamed waxaa ka socday xisbiga shakhsiyadda iyo wadaniyadda Soomaaliyeed runtii waxaa isleeyahay macadka cilmi baarista ee sibam iyo runtii madaxa macadka cilmi baarista ee sibam maxamed mukhtaarba waxay soo diyaariyeen isleeyahay runtii fariin mug weyn leh markii la fiiriyo oo maanta fariintii ay xisbiyada u wadeen waxay ahayd xisbi walbaba haddii uu ku guul dareysto inuu qorshe yeesho wuxuu qorshaystay
guuldaradiisa. Marka waxaa isleeyahay runtii waxay ahayd fariintaasi in xisbi walba uu si dhaba u qaato oo maamulka iyo qaab dhismeedka xisbiyada ayaga gudahooda intaysan u gudbin banaanka in ayagu marka hore ay isdiyaariyaan intay markaas oo markii ayagu ay isdiyaariyaan kadib bay waxay imaanaysaa markaas inay maamulkii dalka iyo heer gobol ilaa heer degmo ilaa iyo noocaas oo kaleeto inay markaas ay usoo gudbaan. maadaama barnaamijkan ama seminaarkan uu ku saabsanaa guud ahaan mowduuc guud looga hadlaya uu ahaa qaabka ay xisbiyadu u samaysan karaan istiraatiijiyada iyo ama u qorsheyn karaan qaabka istiraatiijiga misleedahay seminaarada noocan oo kale waxay ka qayb qaadan karaan in la dhiso aqoonta guud ee xisbiyada siyaasadda dalka maadaama aan ognahay in xisbiyada dalku ay ku cusub yihiin. aad iyo aad waxaa runtii isleeyahay shakhsi ahaan xisbi walbaba maanta wuxuu faa'iiday wadadii uu u mari lahaa inuu asaga marka hore isdiyaariyo. waxaan isleeyahay runtii tababarada noocan oo kale ah waxay runtii ay hadda kan oo kale uu ku soo aaday waqti aad iyo aad loogu baahan yahay maadaama xisbiyada aan ognahay wixii bisha labaad ee sanadkan hadda ka bilaabatay ay diiwaangelinta wejigeeda labaad loo gudbi doono. inta taasi ka horeysa marka in xisbi walba uu ogaado waxyaabaha asaga uu u baahan yahay sidii uu u xoojin lahaa hoggaankiisa iyo maamulkiisa in ay jiraan macahadyo noocan oo kale ah oo cilmi baaris ay ka shaqeynaya inay talooyin mug leh oo waxtar leh ay siiyaan xisbiyada si ay ayaga isku diyaariyaan. marka hore magacayga saddexaad waxaa weeyaan Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi waxaan ka socdaa xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed. barnaamijka maanta kasoo qayb galay magaciisa waa strategy plan waxaan ka faa'iidnay waxyaalo aad iyo aad muhiim ah. waxaa kamid ah waxaan ka faa'iidnay in xisbiga wadanka intuu u talan karo asiga gudihiisa inuu si fiican isku maamulo waxyaalo aad iyo aad u muhiimsan ka faa'iidnay. maadaama intaas oo idil ay ka faa'iideen xisbi ahaan uu casharada guud ahaan ay ku saabsanaayeen istiraatiijiga qaabka ay u samaysan karaan axsaabta siyaasadda dalka maadaama xisbiyo kala duwan dalka ay ka dhismayaan misleedahay seminaar noocan oo kale way u baahan yihiin axsaabta dalka. ها ونسلي تمام نوعا وكله حزبية دمان ودباهين maxaa ku laaban doontaa marka xisbiga aad matalaysay oo casharo ahaan iyo waxyaabaha halkan aad ka faa'iidaysateen oo aad dib kugu laaban doontaan xisbiga aad matalaysay. والله waxaan ku laaban doonaa anoo concepti fiican ka haysto isaga mawduucan strategic plan waxaa la iga qorsanaa maanta aad iyo aad u fahmay cashar fiican oo ka wataan kula laaban doona xisbiga. mahadsantihiin telefishinka iyo ururka CMAP aad baan ugu mahad celinaya sida wanaagsan inoo soo dhaweeyeen waxaan ka socdaa xisbiga Ilays barnaamijkan saaka oo nimid wuxuu ahay barnaamij guul ah oo ku cusub xisbiyadii meel fiican ay kala qabsadeen macadkan CMAP waan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ay saakay noo u ifiyeen macnaha waxyaabaha badnaa ee naga dhinay waxaan rajayn doonaa inay nala qaybsan doonaan xogta badan ee ku dahsoon ay noo hayaan إن شاء الله تعالى وحن لسه ما يصندونا حرير قارة أنك هدانا حزبي إليس وأنا سود ويننا. ما دام لو قال موضوع جودها استراتيجية قابك أوسم مثلا عم قرشها سيد أوسم مثلا حزبيته واحد بدنا للشيء جاي وشرحات بدنا للبحية مثل هذا كان إليس هان واحد أبيه وكجب في دي أما وكبرتي وحقود باقي دونا هولها كلا إليس وياله حزبي أهان. runtii marka xisbiyada halkaan isugu yimid aan wareystay runtii xisbiyada dhanba waxay u lunsanayeen inay wadanka maamulaan laakiin qof walba waxa ka qawneed xaqiisa hoose xisbigiisa muusan lahayn maamul hoose marka macadku wuxuu noo ifiyay inuu xisbi walba uu sameystaa sidoo asaga ku horta isu dhisi lahaa kadibna uu dadku u dhaxgali lahaa bulshooyinka u maamul lahaayeen wax badan baan ka faa'iidnay kulli halkaan aan ku soo koobi karin haddaan dhana maanta waan falanqayn doonaa waxa aan ka baranay waqtiga aan fadhino baan sii qaadanaysaa waqti ka badan. وقرت ugu dambeyn maxaa ku laaban doonta xisbiga matalaysay Mr. Jenisa in seminaar noocan oo kala ay qabtaan macadiyada iyo guud ahaan hay'adaha kala duwan si kor loogu qaado tayada axsaabta siyaasadeed dalka. aad baad u maasan tahay wixii halkaan aan ka faa'iidnay waxaan ku qasbanaa mar walba inaan ula noqono xisbigii aan ku matalaynay fadhigan laakiin tan way ka sii duwan tahay maxaa yeelay waa cashiradii uu u baahnaa xisbiga waan kula noqon doonaa insha Allah taala kulley feedbackna way naga heli doonaan raggii sidaan noo tababaray maanta aad baynu u baansiiyeen. waxa ayaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha seminaarka kuwaas oo iyagu aragtiyo kala duwan ka bixinayay qaabka ay u arkaan ka qaybgalka tababarkan ku saabsanaa sida loo dejiyo yoolalka ama hadafyada iyo istaraatiijiyada dheer ee axsaabta siyaasadeed ee dalka
guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka madasha xisbiyada oo toddobaadkan guud ahaan aynu ku soo qaadanay tababar ku saabsan axsaabta siyaasadeed oo uu soo qaban qaabiyey macadka sibam la yiraahdo ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijka anigoo Ayuub Cabdiraxiin Maxamed ayaa idinla socodsiinaya tan iyo barnaamij mid ka lamid intaynu ku kulmi doono nabadgelyo يقعد أي تدوينه كي تنتظر وركان اختيار كدورتان العذنا وحيتهي ترشو ينحره قف يقعد أي تدوينه